السلام عليكم أصحابتا أن بهوداك تكون هاي الجنال كان موضوعنا مانتا معلومات كصابسن دلك الروشكا دلك أقوبا حد وين عالمكا دل قوة عالمية دلك وين اسكو درك باحد لبا قاردود دل هايستا كيد قيراد oo aad u badan dal xuduud la wadaaga in ka badan 10 dal ay dhex qulqulayaan ilaa 100,000 oo wabi ruushku waa dal ka mid ah wadamada dhaca laba qaaradood waxa uu dhacaa bariga Yurub iyo waqooyiga Aasiya waa dalka caalamka ugu baaxadda weyn 8 meelood meel dhulka caalamka ee la degan yahay ah ruushka waxa uu ku fadhiyaa masaafo 17 milyan oo kiiloomitir oo isku wareega waxa uu xuduud la wadaagaa 14 dal oo dhaca Yurub iyo Aasiya sidoo kale xuduud ayuu la wadaagaa Mareykanka Alaska iyo Japan waa dalka ugu badan caalamka ee wadamo intaas leeg xuduud la wadaaga Norway oo dhacda cirifka waqooyi ee Yurub iyo Kuuriyada waqooyi oo dhacda cirifka bari ee Aasiya inta ka dhaxaysa ayuu Ruushku ku fadhiyaa tirada dadka ku nool Ruushka waxa lagu qiyaasaa 146 milyan oo qof 77% dadkaasi waxa ay ku nool yihiin qaybta Yurubta ee Ruushka Moscow waa caasimadda ahna magaalada ugu weyn ee Ruushka sidoo kale waa magaalada ugu weyn ee qaaradda Yurub Ruushku waa dal hodan ku ah kaymaha wabiyada iyo harooyinka caalamka in ka badan 100,000 oo wabi ayaa mara gudaha Ruushka wabiga Volga ayaa ugu caansan waana wabiga ugu dheer qaaradda Yurub sidoo kale in ka badan 2 milyan oo harooyin ah ayuu leeyahay Ruushku harada Baykal oo ah harada ugu gunta dheer caalamka ayaa ku taal Ruushka waana tan ugu da'da weyn la caalamka waa dal leh qeyraad aad u badan oo ay saliidu ka mid tahay waa dalka ugu badan caalamka ee saliidda shidaalka soo saara waana dalka haysta kaydka gaaska ee ugu badan caalamka sidoo kale waa dalka 8aad ee haysta kaydka shidaalka ee ugu ballaaran caalamka waa dal shidaalka uu soo saaro ay aad ugu tiirsan yihiin wadamada Yurub Ruushku ka hor sanadii 1993 waxa uu ka mid ahaa ama hormuud u ahaa dalweynihii Soofiyeedka dal xilliga ahaa awood dunida ka muuqata dal guul weyn ka gaaray dagaalkii labaad ee dunida dal awoodiisu ku baahday caalamka dal tartan kula jiray xilliga wadamo uu ka mid yahay Mareykanku Soofiyeedku waxa ay gaareen horumar tiknoolajiyadeed oo aan la soo koobi karin waxyaabaha ay ku guuleysteen waxa ka mid ah inay noqdeen dalkii ugu horeeyay ee dayax gacmeed sameeya haddana hawada u dira dalkii ugu horeeyay ee aadamaha hawada sare u dira dalkii ugu horeeyay ee dayaxa ku dul daga taariikhda inta la og yahay waa sida ay sheegaan taariikhyahanadu ka hor inta uusan burburin midowgii Soofiyeedku waxa ay ahaayeen dalka labaad ee xilliga ugu dhaqaalaha badan caalamka dal haysta ciidanka ugu ballaaran dunida ee heegan ku jira dal haysta hubka ugu badan uguna halista badan aadkana wax u gumaada sanadii 1991 oo ku beegan xilligii ay dawladdaas aadka u weyneed burburtay waxa ka samaysmay oo maanta jira 12 dal oo Ruushku ka mid yahay muddo badan ayuu Ruushku la dhibaataysnaa in awoodiisii uu dib u soo ceshto maanta Ruushku nidaam ahaan waa dal federaal ah oo awoodda iyo maamulku uu hoos tago madaxweynaha Vladimir Putin ayaa ah xaakimka xukuma maanta waana shakhsiga soo celishay awooddii uu Ruushku dunida ku lahaa sidoo kalena Ruushka ka dhigay dal hodan ah dhaqaale ahaan waana shakhsi muddo badan soo ahaa kan ugu saameynta iyo awoodda badan dawladaha hadda jira maanta Ruushku
waa dalka 11aad ee ugu dhaqaalaha badan leh caalamka. Marka loo eego 20 sano ka hor booskii uu joogay, waxa ay muujinaysaa Ruushku horumarka uu gaaray inta uu ku hoos jiray maamulka Putin. Sidoo kale waa dal aqoonta iyo waxbarashada aad ugu horumarsan, dal leh dalxiisayaal badan oo booqda. dakhli sanadeedka soo gala dadka Ruushka ee sanadkii waa $29,000. Ruushku maanta waa dal saameyntiisa dhaqaale iyo siyaasadeed ay caalamka aad uga muuqato. waa dal ka mida dowladaha ku hubaysan hubka caalamka ugu halista badan ee nuclear-ka, waana dalka haysta madaxyada ugu badan caalamka. waa awood dunida ka dhex muuqata, go'aamisana jihada siyaasadda caalamka u socoto maanta. markii laga yimaado Mareykanka, waa dal ka mida 5 dal ee haysata awoodda diidmada qayaxan ee qaramada midoobay, kana mida golaha ammaanka. haddii aad u fiirsato xaqiiqooyinka Ruushka, waxa ay ku tusinaysaa in dadku haddii ay wada tashtaan ay dalkooda wax badan u qaban karaan. haddii wax badan ay ka lumaanna ay abuuri karaan intii ka luntay in ka badan. hamiga iyo rajadu markasta haddii ay midoobaan, waxaa imaanayso in dalku uu noqdo mid hodan dhinac waliba ka ah. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. aynoo muuqaalka xiga insha Allah.